marka maskaxaha dadka dunida ku dhaqan uu ku soo dhaco magaca dalka Soomaaliya waxa isla markaba ay xusuustaan waxa ay warbaahinta caalamku ka sheegto Soomaaliya oo ah qaraxyo abaaro barakac gaajo dagaallo qabaa'il isku maran iyo kuwa farta isku lulaya waxaas iyo wax ka daran ay sanado badan warbaahinta dunidu ku shubaysay dhagaha dadka dunideena iyo dawladahooda inkasta oo Soomaalida Soomaaliya ay marar badan kuftay amaba ay la degeen masiibooyin ku habsaday ayaa sanadkii 2011 ay saamaysay abaartii ugu xumayd ee soo martay geeska Afrika muddo 60 sanadood ah dad badan oo ku noolaa koonfurta Soomaaliya ayaa gaajo aawadeed soohdimaha ka tallaabay caruur badan ayaa nafaqa darro baaxad leh ku dhacday halka qaar kalena ay sababsatay nafahoodii iyadoo lagu guda jiray xaaladda xanuunka leh ayaa dalal badan oo adduunka ku yaala iska indhatireen masiibada Soomaalida ku habsatay balse ra'iisul wasaarihii Turkiga ee xilliga madaxweynaha imika Mr. Recep Tayyip Erdogan ayaa Muqdisho ku tagay booqashadii ugu horeysay ee uu mas'uul sare oo ka socda dal horumaray ku taga Soomaaliya muddo ka badan 20 sanadood isagoo ay ku weheliyaan xaaskiisa iyo kooxo wasiir ah oo ay la socdeen xaasaskoodu Mr. Erdogan ayaa booqasho ku tagay xiriir loo waabay dadkii ay abaartu taabatay isagoona ballan qaaday in sida ugu dhaqsaha badan Soomaalida loo soo gaarsiin doono gargaar bini'aadamnimo iyo mashaariic horumarineed waxaana halka ka bilaabmay xiriirka ugu mugaweyn ee dhaxmara Soomaaliya iyo Turkiga مبروك ما شاء الله ما شاء الله مبروك ما شاء الله 27 bishii March sanadkii 1994 ayaa Mr. Erdogan loo doortay maayirka magaalada Istanbul halkaasi oo ahayd halkii uu isku baray dadka Turkida ah kadib markii uu waxqabadyo la taaban karo ka qabtay baahiyihii magaaladu la ildarnayd waaga 4 sanadood kadib ayaa xabsiga la dhigay iyadoo lagu soo eedeeyay inuu ku xadgudbay dastuurka dalka ee kala saaraya diinta iyo dawladda isagoona soo dhamaystay 4 bilood oo xabsi ahaa sidoo kalena lagu xukumay inaanu xafiis dawladeed oo dambe qaban karin inta uu nool yahay dabinka loo dhigay oo markii dambe si xariiftinimo leh uga baxay kadib markii isaga iyo koox ganacsato iyo wadaad ah ay sameeyeen xisbiga ka taliya dalkaasi ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka Akbarti ayaa ku guuleystay doorashooyin la qabtay sanadkii 2002 Erdogan ayaa Turkiga u horseeday horumar baaxad leh balse sanadkii 2016 ayaa koox militariga dalkaasi ah isku dayeen inqilaab xukunka lagaga tuurayo inkastoo uu militarigu ku guuleysteen inay xarunta TV-ga iyo raadiyowga ee dawladdu gacanta ku hayso ka shaaciyaan inqilaabka haddana madaxweynaha oo adeegsanaya baraha bulshada ayaa dadka ugu baaqay inay isku soo baxaan kuwaas oo u qoysgooyay kooxdii inqilaabka waday adduunkana ka yaabiyay Turkida ayaa markii ugu horeysay la gaaray dadkii Soomaaliyeed ee balanbalayay kaalmo dhan 350 milyan oo dollar oo iskugu jiray raashin dawooyin iyo taandooyin balse intaasi kuma ay koobneen gargaarka Turkidu waxay ahayd fuuq celin waxay aad ugu dadaaleen hagaajinta nolosha dadka Soomaaliyeed iyagoo dib u dhis u sameeyay jidad hore madaarka Aadan Cadde International Airport dhisidda mid ka mid ah isbitaalada ugu casrisan bariga Afrika ee Erdogan tababarka dhanka ciidamada kaabida miisaaniyadda dawladda Soomaaliya iyo iyagoo deeqo waxbarasho oo tiro badan ugu deeqay arday Soomaaliyeed xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa xitaa gaaray heer qoysas badan oo Soomaali iyo Turki ah ayaa iska guursaday kuwaasoo imika caruura leh hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa badan oo u badan reer galbeedka ayaa sheegan jiray inay Soomaaliya ku bixiyaan lacag kor u dhaafaya 50 bilyan oo dollar kuwaasoo xarumo ka samaystay magaalada Nairobi balse Turkida ayaa iyagu ku bixiyay lacag inta aad iyo aad uga yar balse gaadhay dadkii u baahnaa iyagoona xaruntooda ka dhigtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Turkida ayaa Muqdisho ka dhistay safaaradda ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay adduunka oo dhan
inkasta oo xidhiidhka taariikhiga ah ee Turkigu Soomaalida la leeyahay aad ugu badnaa dhanka Somaliland halkaasoo weli raadadkii boqortooyadii Cusmaaniyiintu ka sii muuqdaan haddana waxaa dad badan oo reer Somaliland ah ay aaminsan yihiin inaanu Turkigu sinaba dhexdhexaad uga noqon karin wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka Ariel, magaalada Hargeysa.